Iska horimaadyo ayaa tin iyo subaxnimadii Sabti 26 February 2022 ka socday caasimadda dalka Ukraine ee Kiev. Iska horimaadyadaan oo u dhexeeyay ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka oo doonaya inay gacan ku haynta magaalada la wareegaan, iyadoo magaalada la duqeynayay muddo 2 maalmood ah kadib markii uu bilowday weerarka Ruushku. Wadada Victory Avenue oo ka mid ah halbowlayaasha waaweyn ee Kiev ayaa goobjoog u ahayd dagaal saacado kadib markii uu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ku baaqay abaabul. Adeegga isgaarsiinta gaarka ee Ukraine ayaa sheegay subaxnimadii Sabtida in dagaalo gacanta la isugu qaaday ay ka socdaan Kiev, iyadoo ay ciidamada Ukraine ka hortegayaan qaswadayaasha Ruushka. Ciidamada dhulka ee Ukraine ayaa sidoo kale bartooda Facebook ku shaaciyay inay burburiyeen kolonyo ciidamada Ruushka oo ka koobnaa 5 baabuur oo nooca dagaalka oo uu ku jiro hal tank, xilli ay marayeen meel u dhow saldhigga tareenada ee Brestiska ee wadada Victory ee waqooyi galbeed caasimadda. Ciidamada Ukraine ayaa intaa ku daray in dambiilayaasha militariga Ruushku ay weerar ku qaadeen cutub ka tirsan ciidamada Kiev oo ku sugnaa wadada Victory Street. Weerarkaasna waa la iska caabiyay sida ay hadalka u dhigeen. Dhanka kale, ciidamada Ukraine ayaa ka warbixiyay dhacdooyinka dagaalo rabshado wata oo 30 kilomitir koonfur galbeed ka xiga Kiev, halkaasoo ay sheegeen inuu Ruushku isku dayay inuu ku soo dejiyo ciidamada baarashuudka. Dhankiisa, duqa magaalada ayaa sheegay subaxnimadii Sabtida in 10 qof ay ku dhaawacmeen dagaaladii habeenkii ka dhacay magaalada Kiev, isagoo intaa ku daray in 6dii subaxnimo ee waqtiga maxalliga ay ku dhaawacmeen 35 qof ay ku jiraan 2 carruur ah. Ma cadda inuu la jeeday dadka rayidka ah oo keliya. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ciidamada Ruushku ay isku dayayaan inay weerar ku qaadaan xarunta korontada ee degmada Torojina ee ku taal waqooyi bari ee Kiev, waxaana shacabka caasimadda laga codsaday inay ku ekaadaan guryahooda ama aysan u dhowaan daaqadaha haddii ay guryaha joogaan. Muuqaalo ay muwaadiniintu qaadeen oo lagu baahiyay baraha bulshada. Iska horimaadka u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo kuwa Ruushka ayaa ka dhacay xaafadaha caasimadda, halkaasoo laga maqlayay dhaawaca rasaasta iyo qaraxyada. Dhankeeda, duqa magaalada Falsikev ayaa hadal ay siisay TV-ga ku sheegtay in tiro badan oo askarta Ruushka ay baarashuud ku galeen Vasilivka oo u dhow caasimadda Kiev. Waxay intaa ku dartay in iska horimaad uu ka dhacay magaalada iyo in askarta Ruushku ay fuliyeen weeraro gantaalo ah, ayna jiraan khasaare soo gaadhay ciidamada qalabka sida ee Ukraine. Waxaa barbar socday iska horimaadyadaas. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in magaalada caasimadda ee Kiev la duqeeyay saaka. Wakaaladdu waxay sheegtay in 2 gantaal ay ku dhaceen deegaanada koonfur galbeed ee caasimadda, iyadoo intaas ku dartay in mid ka mid ah uu ku dhacay deegaan ku dhow garoonka diyaaradaha ee Julani, iyadoo midka kalena uu ku dhacay meel dhismaha. Geesta kale, wasiirka caafimaadka Ukraine ayaa Sabtidii sheegay in 198 qof oo rayid ah lagu dilay duulaanka Ruushka oo ay ku jiraan 3 carruur ah, 115 kale oo rayid ahna ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirku, oo ay ku jiraan 33 carruur ah. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa muuqaal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu sheegay shacabka inaysan rumaysan wararka been abuurka. Waxa uu yidhi, halkan ayaan joogaa, wax hub ah ma dhigayno, waanu ilaalin doonaa dalkayaga, waayo hubkayagu waa xaqiiqadayada.